السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaan waxaan idinku soo gudbinaynaa dhacdo cajiib ah oo ka dhacday dalka Mareykanka, qaasatan gobolka Minnesota. waxaa saaxiib isku ruux ah, iskuna dhow, iskuna kalsoon ahaa laba wiil iyo wiil kale oo isla saaxiibkooda ah laakiin aan aad isugu xirneen. laakiin labada wiil waxay ahayn laba wiil aad iyo aad isugu xiran. labada wiil waxay ahayn Soomaali, wiilka kalena wuxuu ahaa Mareykan. runtii markii wiilasheena ama waalidiinteena qaarkood ay dalka dibadiisa aadeen, wadankeena xaaladiisa waa la socotaan, wuxuu ahaa wadan iska burburay, xaalad walba iska soo galay, dhibaato fara badan soo maray. laakiin inta badan dadkeena waxay u qaxeen ama ay aadeen America iyo inta kale ee Yurubtan kale iyo wadamadan kale. runtii waxaa dhex martay qiso cajiib ah wiilka Mareykanka ahaa iyo labada wiil ee Soomaaliyeed. wiilka Mareykanka ah dadka qaarkood waxay leeyihiin dhibaatada waxa keenaya ama dhibaato waxa keena qofka gaalka ah oo kaliya. runtii dadka muslimiinta qaarkoodna waxay leeyihiin dhibaato aad iyo aad u faraha badan, iyagoo isgaranaya, isnacaya, isqabiilsanaya. qaasatan Soomaali markaan nahay waxaan aad iyo aad ugu dheereynaa qabyaalada. waxaa dhacday wiilka iyo labada wiil ee Soomaaliyeed iyo wiilka Mareykanka ahaa waxay noqdeen marka dambe saddex wiil oo isku xiran, isku xaafad degan, oo isku kalsoon, oo wax walba wadaaga, oo meel walba wada aada, soo wada waashaala, oo meel kasta la aada, iskuulka isla aada ay ahaayeen. marka waxaa dhacday labadii wiil Soomaaliyeed mid baa xanuunsaday oo midka kale iyo kii kale Mareykanka ah ayaa meel walba isku raaci jiray. laakiin midka Soomaaliga wuxuu dhahay, midkaas Soomaaliga ee saaxiibkayga ah adiga ayaa ka fiican, waayo wax walba waa wadaagnaa, wax walba waa isku sheegnaa, laakiin ninkaas Soomaaliga wax walba iga qarsadaa. wuxuu ka dhigay ninkii walaalkiisa ahaa ee Soomaaliyeed, wuxuu ka dhigay nin xun. wuxuu soo dhaweysanayaa ninkan Mareykanka ah ee halkan oo kaliya isku arkeen, laakiin ninkan waa nin isku meel ka soo jeedaan, waa ninay isku jinsiyad yihiin, waa ninay muslim isla yihiin. laakiin anaga haddaan nahay Soomaali ama Soomaali ummadda Soomaaliyeed waxaa caadi u dhaqan noo ah meel walba oo tagno waxaan iska dhignaa dadka meesha u dhashay, dadka meesha oo xaq u leh, dadka meesha nin walba wuxuu leeyahay wadan u gooniya, magaalo u gooniya, caasimad u gooniya, jinsiyad u gooniya. meel walba tagtid, wadan walba tagtid, qasab maahan adiga in aad noqotid meeshaas dadka u dhashay. waxaa laga doonayaa mar walba inaad noqotid nin jinsiyadiisa ku faanaya, qof walba jinsiyadiisa ka soo jeedana madaxuu ka saaran yahay. marka wiilka Soomaaliyeed wuxuu mar walba israaracsan jiray ninkan Mareykanka ah, wuxuu mar walba hoos u dhigi jiray ninka walaalkiisa ah ee Soomaaliyeed ee saaxiibada ay yihiin ee xanuunsaday ee maalmahan aan la socon. wuxuu ka faa'iideystay maqnaashiisa, hortiisana wax kama sheegi karo. ugu badnaa haddaan nahay Soomaalina waxaan u badannahay qofka markuu maqan yahay inaan wax ka sheegno, wax walbana dhabarkiisa aan ka sheegno, aan hortiisa ka sheegi jirin. runtii qof bini'aadamku waxaa fiican haddaad xumaantiisa sheegaysid inaad wejigiisa aad kaga saartid, hadduu xun yahay hadduu san yahay inaad samaantiisa mar walba u aqoonsanaatid. marka ninkan mar walba oo Mareykanka wuxuu maqli jiray ninkan saaxiibkiisa xumaanta ka sheegaya, mar walba dhahay ninkaas waa nin xun, mar walba dhahay ninkaas waa nin aan caadi ahayn. marka ninkan wuxuu ka fahmay inay Soomaalida aad isku neceb yihiin, aan isjecleen, mar walbana xumaan iska sheegaan ayuu meesha ka bartay. maalmaha ka mid ah waxaa dhacday ninkan wiilkii wuxuu bartay ee Mareykanka ahaa ilaa nin wadanka u dhashay waa Soomaali, wuxuu bartay qaar drugska kala iibiya ee drugska kala gada ayuu bartay ninkan. markuu bartay saaxiibnimadii wiilasha Soomaaliyeed xogaa inuu hoos u dhac ku keeno ayuu bilaabay, waayo dad ay isku dhalashay yihiin ee drugska iyo waxyaabaha xun ka ganacsada ee qarash badan soo gala ayuu bartay. marka maalmaha ka mid waxaa dhacday ninkii xanuunsanay saaxiibkooda ahaa ee Soomaaliyeed ayaa soo kacay. labadii wiil ee Soomaaliyeed ayaa wuxuu la damcay inuu qorsho uu u dego, uu ku shaqeysto, hadday baxar galaanna baxarka iyo kale inay ku dhacaan, waa siga noqdo mid ka madax banaan. midkii mar walba saaxiibkiisa xumaanta ka sheegi jiray ayaa fahmay sheekadii. wuxuu dhahay ninkan wuxuu rabaa inuu qorsho baxarna geliyo oo xabsina geliyo, dadkeenana ay dhibaato iyo xarig iyo maxkamad ay ka daawareegaan ninkan naga daa.
ninkii oo mar walba isxigsiinaya ninka Mareykanka wuxuu dhahay ninkan nin fiican waaye waxaan doonayaa aniga saaxiibnimada inaan jaro asiga u go wuxuu dhahay saaxiibnimada ajaris oo ninkana u go'is kulli bani wuxuu ma arko waayo mar walaalkayga tahdaa xunta hadaa santay walaalaanahay waayahay ama ugo ama ila soco adig ku taala laakiin aniga waxaan ku sheegay ninkan inuu baxar inuu ku galiyo uu rabo uu dhibaato inuu ku soo jiido uu doonayo ninka uu madax adeegay wuxuu dhahay ninkan wax dhibaato uu soo jiiday ma lahan qofka dhibaatada uu hay waa adiga waxaan doonayaa inaan kala harno ninkan saaxiibkayga ay doonaysa in xumaata iga qalbigiisa ii gelisid ama xumaan dhinac xumaanta iga tusid laakiin ninkan waa saaxiibkay waan ku kalsoonahay wax xumaana ima wado ugu dambeyn ninkii way kala hareen ninkan waxbarashadiisa iyo armihiisa kale iska galay maalmaha ka mid ah ninkan oo gaari iska wata ninkii oo xumaanta lagu sheegay oo laga harayay ninka kale laga raacay oo wiilka Soomaaliyeed ahaa asigoo gaari wata oo xaafadiisu soo socda ayaa wuxuu arkay ninkan oo Soomaaliga ah ee ninka xun ahaa ee saaxiibnimada qiimaheedu iyo qaayada uusan garnin in la soo ceersanayo oo tooriyo lagu soo ceersanayo ee qaar badan oo gaangiisa ay ceersanayaan oo lugihiisa ku baxso uu taagay ninkan oo gaari wata ayuu ku soo dul wareegtay wuxuu walaal u badbaadi walaal dadkan inay dilaanay rabaan gaarigaaga uu qaat markuu soo fiiriyay wuxuu arkay inuu saaxiibkiisa yahay ee hore uu xumeeyay markaas oo saaxiib aadan ugu xumahay inaan ku xumeeyo fadlan dadkan iga bixi gaarigii uu ka furay uu la carray dadkan gaariga taargadiisa ay dusha ka ogaadeen ay xaafada u galay ay soo tabiraaceen gaariga taargadiisa dusha ka ogaadeen ninkan uu iska dhaafay iska baxeen ninkan uu weydii markii maxad la soo carraysay maxay ka rabeen dadkan u dhahay wuxuu dhahay markii wuxuu ugu jawaabay ilaa xumaantiisa sheegay ma jireen wuxuu dhahay dadkan waxay rabeen inaan daraagas u iibiyo daraagiskii ayaan ka diiday marka waxay doonayaan qasab inaan uga iibiyo wuxuu dhahay runta ii sheeg haddii dadkan ay daraagis qasab inay kugu iibiyaan doonayeen ودعويننا لكن هدي دراجس أديك أدونيس إن تكيب ستو حشيش كتسكو فهم ويسين مركز كان مدعوينين ما يورد كان هدي أن دعوينه يبعتك على النوع إيمان كرته أنا كانوا حندوني نودن كإن نكون ولانه مركز نجدا كنت ساعبك هذا الكاس حقا معقولة وكلام مغضي وإسكداي بس وحاب عضي وضمباتي معلن مع كمدة نكيد تكبت بادي أسيو مال إسكسعده ودنيهيس u socda oo gaarigiisa iska wata ayaa waxa arkay groupkii soo ceersanay ninkan ee laga badbaadiyay groupkii soo ceersanay mid kamid ah ayaa arkay telefoon ayuu diray groupkiis kale ayuu diray wuxuu dhahay gaarigii ninkan naga badbaadiyay ayaa halkan taagan fadlan soo carra ninkan uu saaran yahay ninkii gaariga watay uu saaran yahay waxaan doonayaa inaan ka argudisano ninkii uu naga badbaadiyay asigii inuu u dhibaateeyo groupidii dhan waa la isku wacay ninkan wax ma oga dhibaatadaas iyo waxaas maskaxdiisa kuma jiraan oo iska ilaabay waxa ka soo weeratay ilaa 2 bilood oo kale ninkii markuu gaari ka soo degay ayaa toori la geliyay caloosha laga geliyay ugu dambeyn askar ayaa ka soo gaartay asigoo nafta ku sii dambaysa oo dhibaatada ay ku sii dambayso oo silac faraha badan la geliyay oo calooshiisa la soo daadiyay ayaa isbitaalka loola carray ugu dambeyn inta isbitaalka loola sii wado meeshii ayuu ku dhintay arintaana waxaa loo soo xiray gruubadii ninkaas dhibaateeyay waayo waxaa sheegay arintaas ninkii iyo kaamirooyinka qarsoon markii muuqaalada laga soo saaray ninka markay dhibaateeyeen muuqaalada kaamirada qarsoon ayaa qabteen reerkiisa ayaa loo sii sheegay reerka markii loo sii sheegay ninka saaxiibkiisa ayaa dhahay ragan aniga waan garanayaa waxay doonayeen inay daraagis igu iibiyaan aniguna waan ka diiday saaxiibkii maalintaas ayuu la carray sidaas darteed ay ninkan u dhaawaceen oo dhibaato u geysteen raggii marka sidii ayaa lagu soo xiray xabsi ay iminka ku jiraan ama haddar ku jiraan laakiin dhibaatadaas oo dhan waxa uu keenay saaxiibkiisa uu badbaadiyay marka dadkan dibadda ku nool waxaan leenahay khaasatan America caruurta xaaladooda laga warhayo dhibaato far badan ay u keenaan dadka adagana dhibaato ay ku keenayaan marka anagana haddaan nahay Soomaali meel walba joogno qof Soomaaliyeed markii dhibaato ku dhacdo aad ayaan ugu xumaanaynaa taasna waxa keenaya waxaan nahay dad walaalo ah waxaan nahay dad isku dhiiga waxaan nahay dad jinsi wadaaga marka waxaan idin ka codsanaynaa waalidiinta kula nool caruurta qurbaha America oo kaliya maahan inta meel ee wadamada caalamka aad kaga nooshihiin waxaan leenahay walaalaheena noo ilaaliya dhibaatada nooga ilaaliya mar walba la socda almuhim caruurta hada doonaysa inay wadada toosan maraan diinteena macaan ay suuban in fahamsiisaan
qofka haduu diinta ka dhisan yahay inta badan inuu xumaan ku dhaco aad ay u adag tahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.